بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم waxaan maanta waxyaro kooban ka sheekeynayaa taariikh nololeedkii saxaabiga la dhihi jiray abu cubaydat ibnu ljaraax abu cubaydat ibnu ljaraax wuxuu ku dhashay magaalada maka sanadku markuu ahaa 584 miilaadiga wuxuuna ahaa quraysh wuxuu islaamka soo galay iyadoo islaamku uu bilow yahay dad aad u yar ayaana kaga horreeyey islaamka wuxuu ku soo muslimay gacanta abubakar sidiiq macnaa abubakar sidiiq baa ilaahay sabab uga dhigay inuu islaamka soo galo abubakar nin qiimo badan buu ahaa dad badanna muslimiyey saxaabigaas la yidhaahdo cubaydat ibnuljaraax wuxuu nasiib u yeeshay inuu ka mid noqday 10kii iyagoo nool jannada loogu bishaareeyey nebigeenuna salawaatullaahi wasalaamu calayh xadiis ayuu wuxuu ku yidhi ina likulli ummatin amiinan wa amiinu haadihi lumma abu cubaydat ibnuljaraax ummad kasta waxay leedahay oo ay lahayd amiin ummaddan amiinkooduna waa abu cubaydat ibnuljaraax ammaan intaasaa ugu filan in la yidhi ummaddan kooda amiinka ah amiinkooda waa abu cubayda in la yidhaahdo waa derajo aan wax kula murmi kara la arag rasuulullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa siiyey waana sharaf oo bini aadamkaana meesha ugu sarraysay waxaa la sheegay cabdullaahi bnu cumar hadal cajiiba ayuu ka sheegay wuxuu yidhi 3 min qurayshin asbaxu nnaasi wujuuhan wa axsanuhum khuluqan wa ashaduhum xayaa'an abubakar wa cuhmaan wa abu cubayda 3 quraysh ka mida waxay ahayd dadka ugu wejiga wanaagsan oo macnaha quraysh weji bay ku lahaayeen iyo sharaf dhexdooda waxayna ahaayeen kuwa ugu akhlaaqda wanaagsan ugu xishoodka badan 3daasna waxay ahaayeen buri abubakar cuhmaan iyo abu cubayda waxaa la sheegay abubakar sidiiq markii nebigeena uu dhintay calayhi salaatu wasalaam ee laisugu tegay meesha la dhihi jiray saqiifa waa meel ay ansaar ku kulmeen oo ay markaa ay kaga hadlayeen ninka ay xilka u magacaabi lahaayeen waa intaan abubakar xilka loo dhiibin abubakar tala ah wuxuu soo jeediyey maalintaas wuxuu yidhi qad radiitu lakum axadu haadayni rajulayni cumar ibnu khadaab wa abu cubaydat ibnu ljaraax anigu waxaan raalli inkaga ahay buu yidhi laba nin mid un inaad xukunka u dhiibtaan cumar ibnu khadaab iyo abu cubaydat ibnu ljaraax kadib adugu un wada hadal dheer abubakar baa khaliif laga dhigay taasuu marka kutubasiyarka ayay ku taallaa oo ha laga raadiyo waxaa la sheegay abubakar inuu kaluu yidhi calaykum bilhayin allayn macnaa isagoo sifaynaya abu cubayda inuu yidhi waa inaad wax ku darsataan ood laasimtaan buu yidhi midka dabeecadda jilicsan oo dabeecaddiisu ay sahalka tahay oo dabeecadda macaan buu yidhi alladii idaa dulima lam yadlim waa midka marka la dulmiyo aanan wax dulmin buu yidhi wa idaa usii'a ilaahi gafar marka la xumeeyana iska dhaafa wa idaa qudica wasal markii la gooyana waa midka xidhiiriya oo dadku gooyaan wuu xidhiiriyaa buu yidhi raxiimun bilmu'miniin mu'miniinta waa mid u naxariis badan shadiidun cala alkaafiriin gaalada ku ad adag ikhwaani marka tilmaamahaas ayaa dadkaasi wan wanaagsan ay lahaayeen waxaa la sheegay cumar ibnu khadaab inuu yidhi in adrakanii ajalii wa abuu cubaydatun xayun istakhlaftaha ayuu yidhi hadday dhacda in wakhtigii geerideedu ay isoo haleesho oo ajashaydu ay timaado abu cubaydatuna uu nool yahay ee uu abu cubayda yahay mid nool xilka muslimiinta isaga ayaan khaliif uga dhigayaa ayuu yidhi macnaha isaga ayaan u magacaabayaa buu yidhi ummuna caaisha markii la weydiiyey abu cubayda waxay tidhi yaa dadka ugu jeceshahay baa layidhi markaas waxay tidhi abubakar ummana waxay tidhi cumar umma abu cubaydat ibnuljaraax abubakarna dadka ugu jeclaya waa aabaheed cumar baan haddana yaa ku xigay bay tidhi waxaa darajo saddexaad ay sida abu cubaydat ibnuljaraax bal eega fadliga qiimuhu lahaa waxaan ku xusuusannaa
oo in badanna muxuu ahaa dadka muslimiinta alla qiyaamu saaca ay ku xusuusanayaan inuu ahaa ninkii dhulka shaam furtay diinta gaarsiiyey iyo baytulmaqdis oo maanta yuhuudi ay muxuu ahaa sidaa aragtay oo foolxumada ay ku samaynayaan. ragga asxaabta ah oo ka mid ahaa ayaa dhiiggooda qaaliga u huray dhulkaa inay furtaan. maantana waad arkaysaan walaalayaal markii diinta laga tegay meesha xaalku marayo. waxaa la sheegay intuu muxuu ahaa taliyihii ciidanka ahaa inuu wax badan qabtay. wuxuu qabtana hadda waxaaba ugu qaalisanaa dhiiggiisa qaaliga ah ayuu muxuu ahaa jihaadka ilaahay uu u huray. xilligii markii la furtay baytulmaqdis ayaa nimankii joogay nasaarada ahay waxay yidhaahdeen furaha baytulmaqdis ma dhiibayna ilaa cumar ibnu khadaab uu yimaado. cumar baa yimid baa la yidhi. cumar markaa isagoo raba furihii baytulmaqdis inuu kala wareego qolada. cumar ma dhihin war nimanka warkooda iska dhaafee ha laga qaado furaha gaalada xunkaa ma dhihin. halkaasuu ka yimid inuu markaa nimankaa la kulmo bal islaamka arka sharafta iyo qiimuhu lahaa iyo siduu dadka bashariyadda uu u qadarinayay insaanka. waxaa la yidhi markii uu yimid ayaa indhihiisu waxay qaban waayeen oy arki waaya abuu cubayda. markaasuu wuxuu yidhi aaway walaalkay abuu cubayda ayuu yidhi xaggee jiraa. abuu cubayda wuu imaanayaa waa uu yimid. nin kasta markaas waxaa la yidhi wuxuu isu diyaarinayay inuu gurigiisa cumar uu geeyo uu isagu markaa marti qaado. mayuu yidhi marka guriga abuu cubayde ayaana aadayaa. abuu cubayde gurigiisii buu tegey. wax lala yaabo ayuu ku soo arkay. marka u fiirsada walaalayaal. waxaa la yidhi maal iyo hanti iyo wax kale kumuusan arag baa la yidhi. hadda waa ninkii taliyihii ciidanka ahaa ama dhulka madaxda ka ahaa. waxaa la yidhi seef iyo gaashaan iyo weel yar oo dhowr khubsi dhowr xabaa ay ku jirto ayuu ku soo arkay baa layidhi. wax kaleba kuma arag. cumar wuu ooyey baa la yidhi marka ma noloshaanaad ku nooshahay yuu yidhi. markaasaa wuxuu yidhi noloshaan wuu yidhi yartaa ah ama waxaan yar midda weyn oo ilaahay noogu talagalay ayaan ku gaaraynaa yuu yidhi cumarow. tanu macnaha ma aha meeshaan u soconna waxay tahay ama ma aha adduunyada anagu maal iyo hanti badan inaan isku mashquulinee waxaan yarkaahuu yidhi waxa weyn oo ilaahay noo diyaariyey ayaan ku gaaraynaa yuu yidhi. cumar markaasuu mar labaad ooyey baa layidhi. aad buu u ooyey. waa wax lala yaabo. abuu cubayda ibnuuljaraax waxaa la sheegay inuu dhintay sanadku markuu ahaa 18 hijriyada miilaadiguna ay markaa ahayd 639. da'diisuna markaa waxay ahayd 58 sano. waayo markuu muslimay baa waxaa layidhi markii madiine macnaha la soo haajiray 40 sano u jiray. 18 sano kadib ayuu noolaa. 58 jir buu ahaa sidii kutubta lagu sheegay taariikhda. sababta uu ku dhintana waxaa la sheegay dhulkaas dhul hadda meel la dhihi jiray cimwaas oo dhulka hadda urdun la yidhaha ku tiilay ayaa waxaa la yidhi waxaa ku dhacay daacuunkaasu dadka aad u laayey. daacuunkaas sababtii ayuu ku dhintay. intuusa dhiman baa waxaa la yidhi cumar ibnu khadaab markuu maqlay dhulkaas inuu daacuun ku dhacay ayuu warqad u soo qoray. uu leeyahay si deg dega noo soo gaar arrin muhiimaan kaa rabay. abuu cubayda wuu gartay inuu cumar raba inuu ka saaro dhulkan daacuunku ku dhacay siduu abuu cubayda uu u dhiman macnaa siduu u jeclaa. markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi anigu waxaan ahay buu yidhi askari askarta ka mida dadkaan aan madaxdu ahana ka naf jeclaysan maayo. meesha waxa ay noqdaan ayaan la noqonayaayuu yidhi. arrintoodana wuxuu yidhi ilaa ay kala caddaato ama aan annaga allana oofsado ama uu arrinku uu kala baxayo ka naf jeclaysa ama ka naf doorsan maayo ayuu yidhi. wuxuu yidhi maadaama aad khaliifkeenni tahay waxaan kaa codsanayaa ayuu yidhi oo si aad kaaga codsanayaa inaad i cafisid buu yidhi iina ogolaatay inaan sii joogo. ma dhihin ilaa waa diida ma dhihin. bal eega akhwaani sidaasaa nebigu marka calayhi salaatu wasalaam uu saxaabadiisa u tarbiyeeyey. sidaa cumar wuu ooyey baa la yidhi marka aad ayuu u ooyey. asxaabta rasuulka waxay yidhaahdeen cumarow ma waxaa dhintay abuu cubaydat ibnuuljaraax mase khabargeeriyaadkiisa miyaa lagu soo sheega maya laakiin wax dhinta waxba ma dhaama ayuu yidhi. macnaa qarkuu u saaran yahay wey.
الله سبحانه وتعالى أنا مركز أيو أبصدي مدة ماشي سنة وحال ليجن عمواس سيدا أيو أبو عبيدة أها تاريخ ذا ذهبي أيو لها ولا ليال وحا حسيد مدن tilmaamaha laga sheegay ka sokow siduu dowladda islaamka u maamulayay siduu hantida ummadda isaga ilaaliyey siduu u dhowrsanaa waana midda uu ku mutay in Allah subxaanahu wa tacaala isagoo nool jannadiisa loogu bishaareeyey ilaahay waxaan ka baryayaa abu cubayde iyo rag lamida ilaahay uu noo soo celiyo ilaahayna annaga duudka yaga ama dhabarka yaga uu ka soo saaro rag sidaasoo kale ah muslimiintan maanta dulliga haysta ilaahay inuu ka saaro ilaahayna inuu naga dhigo kuwa diintiisii u laabta raggaas cudamada ah oo taariikhda baalka dahabka ka galana kuwii barta taariikhdooda oo diraaseeya oo ku dhaqmana ilaahay ha naga dhigo maanta intaa ayaan ku soo koobayaa taariikhda qiimaha badan iyo hadalka aadka u wanaagsan oo kutubtu siyarka ay ka qoreen abu cubayda waana gaboodfal inaan wax 10 daqiiqo ama war la mid ah aan abu cubayde ku soo koobo warkiisii laakiin waxaan uga dan leeyahay inaan dadku muxuu ahaa ay xusuustaan inta ka dhimanna ay sii akhriyaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu صحبي هيا أقبلوا جاء روا يملأ الأكوان نورا واضيا والتحايا لبنات رابع أنتم اليوم نجوما في السماء أنتم اليوم نجوما في السماء وسعيتم للفلاح جاهدين وتعاونتم بحب وإخاء ربي بلغهم ثواب الصابرين كي يذوقوا فرحة بعد عنا كي يذوقوا فرحة بعد